بسم الله الرحمن الرحيم تبintan caawa qodobada aan idinkugu hayana waxa kamida hogaamiyaha Kooriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa maanta xariga ka jaray markab dagaal oo mucjiso ah oo wadankiisa uu yeeshay markabkan waxa ku xiran gantaalo kala duwan waxana dunida reer galbeedka ay durbaabo bilaabeen sirdoonkooda in ay dabagal ku sameeyaan markabkan gantaalaha ku xiran oo qaarkood xitaa la sheegay in lagu la dagaalami karo maraakiibta gujisyada ah ee quusa gantaalaha ballistiga ah iyo waliba gantaalo la sheegay madaxa hore in nuclear ku qaadan karaan haddaba Kim Jong Un oo markabkaasi daafuray ciidamada badana maanta ku wareejiyay oo ay howlgalka ku bilaabeenba hadal uu jeediyay oo la yaab ku noqday dunida ayaan rabaa inaan idin kula wadaago laakiin su'aal waxay ka taagan tahay dhismaha markabkan ruushka kaalin intee leeg ayuu ku lahaa maxaa laga warbaahinta ku qorayaan barnaamijka ayaan ku lafagurayaa khiyaarta ay nala socotay Mareykanka maanta waxaa halis galay mid ka mid ah diyaaradihiisa casriga ah ee gobolka bariga dhexe jooga diyaarad nooca diyaaradaha dagaalka shidaalka siisa ah ayaa digniinta diyaaraduhu ay bixiyaan markay qatar dareemaan oo waliba si degdeg ah u degaan 7 eber ayay soo shiday waliba iyadoo howlgal dhinaca Ciraaq ka timi diyaaradaasi xagee ku degtay qatarta ay dareento maxay tahay maxaysa ka yiraahdeen ciidamada cirka ee wadanka Mareykanka ee jooga gobolka bariga dhexe ma diyaarad drone ayaa lagu weeraray xogta aan idin hayno ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan diyaaradan mar kale uu Trump ku waayay gaari maanta gobolka bariga dhexe Trump waxa uu ku dhawaaqay in uu qarka u saaran yahay inuu ka laabtay heshiiska Iran digniin ayaa loo diray Tehran jawaab ayaa laga sugayaa Pezeshkian oo maanta abaalmarin caalami ah la siiyay Pakistan waxa ay ku dhawaaqaysaa ama ay ku dhawaaqday goobta uu mar kale ka bilaaban doono heshiiska wada hadalka ah halka uu ka sii socon doono xilli laga baqayo Trump inuu leeyahay waan ka laabtay heshiiska oo laga yaabo dagaalka inuu dib uga bilowdo xagee wax ka qaldameen barnaamijka ayaan ku lafagurayaa caawa qodobadaas iyo kuwa kale oo si gaar ah u quseeya arrimaha gobolka bariga dhexe xiisadan xasaasiga ah isbedelada soo kordhay iyo jihada caalamka uu aadi doono xilli dawladaha qaar ay bilaabeen inay ka fakaraan marxaladan xasaasiga ah goobta ay kaga badbaadi lahaayeen warbaahinta dunida iyo hay'adaha sirdoonkuba caawa wadanka Kooriyada Waqooyi ayaa indhaha lagu hayaa iyo hogaamiyaha dhalinyarada ah ee Kim Jong Un kadib markii uu maanta daafuray markab mucjiso ah oo lagu tilmaamay maraakiibta dagaal ee xilligan ugu halista badan ee wadankaasi uu dhistay markabkan ayaa la saaray gantaalo kala duwan qaarkood waxa ay madaxa ku qaadan karaan gantaalahan nuclearka qaarkoodna waxa ay la dagaalami karaan maraakiibta gujisyada ah ee quusa ee u dhunta maraakiibta dagaalka kuwa kale waxa ay ayaa ku xiran oo loogu talagalay burburinta maraakiibta dagaalka ee weerarka soo qaada arintan la yaab kale waxa sidoo kale kamid ah in la leeyahay markabkan waxa farsamadiisa qayb ka lahaa dalka Ruushka oo maanta arintan loo arkaa in uu ka faa'iideysanayo maadaama xiriir استراتيجي أمني أولى wadankaasi Kim Jong Un waxa uu hogaamiyaa Kooriyada Waqooyi oo caasimadiisa Pyongyang tahay waxana uu kamid yahay dalalka ay waa hore kala xarifuteen dawladda Mareykanka oo iminka calan walaynaysa isla markaana dawlado fara badan oo awood la ay ku soo baxayaan sidee caawa arintan u faaqidayaan warbaahinta gobolka iyo sidee loo lafagurayo bal aan eego dawladda Kooriyada Waqooyi ayaa si rasmi ah u howlgelisay markabka dagaalka ee lagu magacaabo Ji Hyun kaas oo lagu tilmaamay markab dagaalka ugu weyn ee dalkaasi ebed uu dhisto hogaamiyaha wadankaasi Kim Jong Un ayaa sheegay in markabkan uu astaan u yahay horumarka ciidamada badda iyo barnaamijka hubka nuclearka ee Pyongyang markabka bahalka badda ayaa loo bixiyay oo dawladdaasi ay ku dhawaaqaysaa tankiisa waxa lagu sheegay inuu gaarayo 5,000 oo tan waxana lagu qiyaasaa dhererkiisa inuu yahay 140 ilaa 145 mitir isagoo noqday markabkii ugu weynaa ee gudaha dalkaasi lagu dhiso tan iyo markii dawladdaasi ay dib u bilowday
abaabulka ciidamadeeda iyo waliba isku tashiga hubka iyadu ay leedahay. waxaa si rasmi ah loogu daray ciidamada badda ee Kuuriyada Waqooyi qalabka ay ku howlgalaan kadib munaasabad lagu qabtay degada Nambu, waxaana loo xil saaray ilaalinta xeebaha galbeedka ee wadankaasi. haddaba markabkan oo caawa la leeyahay waa midka ugu halista iyo mucjisada badan wadanka Kuuriyada Waqooyi, waxyaabaha gantaalaha lagu xiray ayaa la soo bandhigay. waxaa ka mid ah gantaalo lidka diyaaradaha ah, gantaalo lidka maraakiibta ah oo burburiyaal ah, gantaalo nooca cruise-ka ah oo masaafo dheer gaaraya. waa hal markab oo kaliya waxaas. waxaa sidoo kale ku xiran gantaalaha baalistiga ah oo la sheegay inay qaadan karaan madaxyo nuclear ah oo waliba meeshii ay rabaan ay ku garaaci karaan. nidaamyo difaac oo hawada sare oo casri ah, tallaabooyin waxaa la yidhi iyo waliba waxyaabo loogu talagalay in lagu arko meelaha fogfog iyo jihaynta iyo qalabka loo adeegsado maraakiibta quusta in looga hortago, sida lagu sheegay markabkan iyo awoodiisa. khubarada ayaa qiyaasaysa in markabkan uu leeyahay ku dhawaad 88 meelood oo gantaalaha laga rido, vertical launch cells halka waxa la yiraahdo, taasoo siinaysa awoodda uu ku qaado baa yiri noocyo kala duwan oo hub ah. markab aqoon loo geeyay oo si weyn looga fakiray oo wadankaasi hadda uu yeeshay ayuu ka mid yahay. tani caawa waxaa si weyn u faaqidaya warbaahinta reer galbeedka maadaama Trump iyo dowladahan ay si weyn isku hayaan. haddaba waxaa la yiri isbedel ayaa ku yimid ciidamada badda ee wadanka North Korea ama Kuuriyada Waqooyi. Kim Jong Un ayaaba arrintaa ku dhawaaqay oo ka hadlay. waxa uu leeyahay ciidamada badda dalkiisu inaysan hadda ku koobnayn ciidamo difaaca xeebaha oo kaliya, balse ay isu bedeleen ciidamo awood u leh howlgallo ka fog biyaha wadankiisa. meel ka fog Kuuriyada Waqooyi ayaa arrintan ka sameyn karnaa buu yiri tallaabo. waxay sidoo kale tani walaac ku noqonaysaa Kuuriyada Koonfureed iyo waliba Seoul iyo dalka Japan Tokyo oo ka mid ah dalalka ay sida weyn wadankan xifaaltanka ula dhaxeeyo, maadaama uu sanadihii ugu dambeeyay Kim Jong Un noqonayay nin isaga isku tashanayay oo horumar weyn gaarayay. tan iyo markii tani waxay ka dhigan tahay baa yiri in Kuuriyada Waqooyi ay isu diyaarinayso inay yeelato awood badeed oo ka ballaaran tii ay hore u lahayd, isla markaana ay kordhiso awoodeeda weerarada fog. haddaba markabkaasi waan fahanay, laakiin su'aali waxay ka taagan tahay ruushka kaalin intee leeg ayuu ku leeyahay farsamadan, maxay caawa sirdoonka reer galbeedku ku faaqidayaan markabkan. mas-uuliyiinta iyo falanqeeyaasha ku sugan South Korea ayaa rumaysan in markabkan laga yaabo in ay ka faa'iideystay taageero farsamo oo ka timi Ruushka, maadaama xiriirka military ee labada dal waa Moscow iyo Pyongyang ay sii xoogaysanayeen sanadihii ugu dambeeyay. si kastaba ahaatee qaar ka mid ah khubarada iyo waliba waxa ay shaki ka qabaan heerka uu markabkan dhab ahaantii ugu shaqayn karo dagaal buuxa, inkastoo aan si rasmi ah loo howlgalay. reer galbeedku waxay leeyihiin war waxa meesha la soo dhigay amuu yahay dogob ballaaran oo aan wax badan gelin, laakiin ninkan jaagada xiiran ee Pyongyang hogaamiya waa Kim Jong Un waxa uu hadda u arkaa in xiisadu aysan ahayn sida loo malaynayo ee wadankiisa uu gaaray isku filnaan xoogan. soo bixitaanka markabkan cusub ayaa walaac ku abuuri kara dalal ay ka mid yihiin South Korea, Japan, Mareykanka iyo dalal kale oo saaxiibo la ah wadamada reer galbeedka. si kastaba ha ahaatee markabkan ayaa loo arkaa baa la yiri saldhig badeed oo awood u leh in uu rido baa la yiri gantaalo masaafo dheer, kuwa ay ku jiraan masaafo dhexe, kuwa nuclear ka qaata iyo waliba kuwa kale. markabkan waxa uu calaamad u yahay dadaalka Kuuriyada Waqooyi ee lagu ballaarinayo awoodeeda militariga, gaar ahaan dhinaca badda. haddii awoodda lagu sheegay dhab ay noqotona, markabkan waxa uu noqon karaa mid ka mid ah inuu wax ka bedelo isku dheelitirka awoodaha badda ee bariga qaaradda Aasiya, sida wararka soo baxaya ay tilmaamayaan. waayahay Trump sheeka u taala wadamada is hayeen mid walba waxa uu samaysanayaa hub iyo isku tashi xoog leh. dagaalkii Iiraanna waxa uu bedelay isku dheelitirnaantii awoodaha dunida, iyadoo dowlado
loo arkayo kuwa soo koraya hadda lagu tilmaamayo inay gaareen qimada ugu sarreysa ee awoodaha dunida sida dalka Shiinaha oo kale. Kim Jong Un dalkiisa hadda waxa uu noqonayaa mid ku soo beeraya tartanka awoodaha ee soconaya. aan eego isla qalabka dagaalka ee gobolka bariga dhexe yaala diyaaradda la yiraahdo KC-135 Straight Tiger oo dalka Mareykanku uu leeyahay oo ah nooca diyaaradaha caalamiga ah siiya ee dagaalamaya siiya shidaalka iyadoo hawada ku jiraan ayaa maanta soo shiday digniinta 77 eber oo loogu talagalay diyaaradaha markay digniin noocaan inay soo shidaan ay tahay inay dalbanayaan inay si degdeg ah u fariistaan oo ay qatari dareemayaan. diyaaradan ayaa xilligaasi howlgal ka fulisay gudaha wadanka Ciraaq laakiin waxay si degdeg ah u fariisatay garoonka Ben Gurion ee nidaamka Israel ee dhulka Falastiiniyiinta laga haysto. waxaa leeyahay diyaaradaha dagaalka shidaal siisa oo ciidamada cirka ay leeyihiin oo nooca KC-135 ah ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah in ay ku jirto howlgal ka dhacay gobolka bariga dhexe. sida lagu sheegay wararka dabagalka duulimaadka diyaaradda ayaa dirtay calaamad muujinaysa mid halis oo ah 77 eber taas oo loo isticmaalo marka diyaaraduhu ay la kulmaan xaalad degdeg ah oo ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah iyo goob ay fadhiistaan haddii kale ay qatar tahay in ay dhici karayso. haddaba maxaa dhacay? diyaaradda ayaa la sheegay in ay ka soo laabatay howlgal military oo ka dhacay Ciraaq markii ay la kulantay xaaladan degdeg ah oo ay wali si rasmi ah loo shaacin nooca ay ahayd. kadib markii calaamadda 77 eber diyaaraddu ay soo iftiimisay isla markaana ay bedeshay jihadeedii iyadoo u dhaqaaqday dhanka garoonka Ben Gurion ee Israel. degitaan nabadgelyo ah ayay samaysay ay yiraahdeen Mareykanka. wararku waxay sheegayaan in diyaaraddu ay si nabadgelyo ah ugu degtay garoonka Ben Gurion iyadoo aan la sheegin wax dhaawac ah ama shil ah oo dhacay. ilaa iyo hadda ciidamada Mareykanka iyo mas'uuliyiinta Israel midkoodna ma shaacin sababta dhabta ah ee keentay diyaaradan inay si degdeg ah u degto. haddaba calaamadan ay soo shitay 77 eber maxaan ka naqaanaa? sida caawa warbaahintu ay qorayso waxa la yiri signalka 77 eber waa calaamad ay isticmaalaan duuliyaasha marka ay jiraan xaalado degdeg ah sida cilad farsamo oo halis ah, dhibaato caafimaad oo ka dhaxdhacday diyaaradda gudaheeda, dhibaatooyin la xiriira matoorada ama nidaamyada duulista, ama xaalad kasta oo u baahan baa la yiri in mudnaan degdeg ah la siiyo diyaaraddaasi isla markaana si weyn loo eego. maadaama diyaaraddu ay awood u leedahay inay si caadi ah u degto khibrada duulistu waxa ay u arkaan inay u badan tahay cilad farsamo ama mid taxadir leh halkii ay ka ahayd baa la yiri xaalad khatar oo weyn sida uu Mareykanka caawa laga soo xiganayo. faahfaahin dheeraad ah ayaa la filayaa in la shaaciyo oo ciidamada Santigom ee gobolka bariga dhexe ka howlgala ee Mareykanku ay daboolka ka qaadaan arrintan marka la shaaciyo kadib. waayahay aan eego dhinaca diblomaasiyadda caawa isbedelada imaanaya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo waramayaa in uu leeyahay waxa suuragal ah inaan si degdeg ah uga baxo heshiiskii aan la galay wadanka Iran sabab la xiriira haddii ay fulin waayaan waxyaabihii aan ku heshiinay dowladdan. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in uu si degdeg ah u soo afjari doono wadaxaajoojyada u socda Mareykanka iyo Iran haddii ay beeniyaan bayri ama ay ballanqaadka ay sameeyaan ay hirgelin waayaan amniga maraakiibta maraysa marinbiyoodkana ay si rasmi ah u tixgelin waayaan. Trump ayaa qoraal ku soo daabacay barihiisii bulshada isagoo koobkiisii kafeega uu ag yaallo ayuu Trump marka uu madaxa wareeraba through social qoraalkii uu rabo uu ku soo qoraa. waxa uu leeyahay Iran waxay inay u xaqiijisay wayra Mareykanka inaysan jirin wax anshuura ama lacag caymis ah oo ama qarash ah oo kale oo laga qaadi doono maraakiibta ka gudbaya marinka Hormuz oo dowladda Iran ay qaadayso. waxa uu sheegay wararka sheegaya in Iran ay lacag qaadayso maraakiibta inay yihiin kuwa been abuur ah oo kicinaya buu yiri dhibaato. inta markii uu sheegay
kuma ekaan waxa uu sii daayay digniin aad u culus waxa uu leeyahay haddii xogtan ay qaldan tahay wada xaajoodyada isla markiiba haddii xogtan qaladka ay dhab noqoto wada xaajoodyada markiiba way dhamaan doonaan hadalkan ayaa muujinaya in maamulka Mareykanka aanu arrintan u arka baa layiri mid muhiim ah oo sii socoshada wada xaajoodka dhibaato weyn soo kordhinaysa dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa beeniyay wararka sheegaya in Mareykanka lacag cadaan ah siinaya wadanka Iran ama uu sii daayay qayb ka mid ah hantideeda la xayiray waxa uu sheegay haddii mustaqbalka la fasaxo qayb ka mid ah lacagahaasi in loo adeegsan doono in Iran ay soo iibsato galley qamadi digir iyo cunooyinka kale oo waliba ay ka iibsanayaan booyne Mareykanka oo kaliya hadalkii ayuu haddana Trump mar kale ku celiyay Iran waxay wajahaysaa buu leeyahay cunto yari shacabkii ayaa dhimanaya oo baaba'aya sidaas darteed ma jirto sabab dalkaasi Iran ah lacag cadaan loo siinayo lacagteedana annaga qaadanayna iyana waxaan siinaynaa raashin qamadi u badan Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Iran ay ka tanaasuleyso yaraanta ama qaar ka mid ah raashinka muhiimka ah oo ay halis weyn ugu jirto isagoo xusa haddii gargaar noocaas la bixiyo in uu si gaar ah uga iman doono suuqyada caalamiga ah hadalka Trump ayaa muujinaya in kastoo wada xaajoodka Washington iyo Tehran ay socdaan haddana suurtagalnimada markasta wada xaajoodka in uu ka bixi doono marka Trump caawatintiisa dhinacna uma shalaysanto waxa uu leeyahay aniga sidaan rabaadeen noqon weyso waa ka baxaya heshiiska Iran iyo annagana dib baan isku farasaari doonaa waa duni ninkii Kim Jong Un ahaa uu u samaystay marka mucjiso ah cidoo isu hubayana aad loo yaqaano waxba laga baqayaa xitaa dhinacan Aasiya inay dagaalo kale ka bilowdaan oo labadii Korea ay mar kale isku dhuftaan ama Japan iyo isku dhuftaan dhinacyadaas oo jasiirada mooda Korea mar kale lagu dagaalamo aan mar kale si eego wararka ka imaanaya wadanka Pakistan oo dhaxdhaxaadiyaha diblomaasiyadda ah wadanka Pakistan ayaa sheegay goorta iyo madasha lagu qaban doono shirka xiga ee Mareykanka iyo dawladda Iran ay isugu iman doonaan sidaas waxa ku dhawaaqay wasaaradda amuraha dibadda ee Pakistan xilli Trump uu mar kale ku celinayo in uu ka bixi karo heshiiska dawladda Iran dawladda Pakistan ayaa ku dhawaaqday in wada hadallada farsamo ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran ay dib u bilaaban doonaan toddobaadka soo socda kadib heshiis afgarad ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda iyo colaadda labada dhinac u dhaxaysa afayeenka wasaaradda amuraha dibadda Pakistan Tahir Andorowi ayaa sheegay in wada hadalladu ay dib u furmi doonaan toddobaadka dambe balse uusan wali si rasmi ah u cadeyn goobta lagu qabanayo heshiiskaasi goorta ay bilaabanayaan ayuu sidoo kale ka hadlay mas'uulka Pakistaaniga isagoo sheegay in maalinta ugu badan ay la filayo inay tahay Salaasada inkasta oo ay meesha ka saareen kulankaasi in uu ku qabsoomi doono Isniinta ama Arbacada midkoodna laga yaabay in la soo hormariyo wada hadallada Switzerland ilaa iyo hadda waxay noqdeen kuwa si weyn loo lafagurayo labadan dal ayaa hadda yeeshay wada hadallo dheer oo gudaha Switzerland ka dhacay kuwaasi oo markii hore ay hogaaminayeen wafuudda siyaasadda kadibna ay sii wadaan baa layiri kooxo farsamo oo ka shaqeynaya faahfaahinta heshiiskan isafgaradka ah ayaa la saxay toddobaadkii hore waxana uu dhigayaa in labada dhinac ay heshiis rasmi ah ku gaaraan muddo 60 maalin ah Trump Iran way ogolaatay buu leeyahay in nuclearkeeda la kormeero laakiin dawladda Iran waxay u aragtaa arrimahaas inay yihiin kuwa ku tira ku teena nala socota tabinta qaybtan intaas ayaan ku hakinayaa warar kale iyo macluumaad kale ayaan ku gudbin doonaa subscribe ayaa saari kartaa adigoo aad u mahadsantiin